بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحاب الأخيار. waxaad ogtihiin walaalayaalow sooyaalkeena diimeed weliba kan riwaa'iga ah inuu waxyaabo fara badan ay ku yaalaan. waxyaabaha waxaa ka mid ah sida ku qoran kitaabka saxiix bukhaariga waxyaabo fara badan oo nabigeena hoos u dhigay. saas awgeed maadaama kitaabkan ay ku yaalaan waxyaabo fara badan oo nabigeena hoos u dhigay waxaaba isweydiin mudan maxaa ka jira warkii la inoo sheegay ee ahaa inuu yahay kitaabkan asaxu kitaabin bacda kitaabillah. aan inaguba dib ugu noqon oon eegno inuu yahay kitaabkan asaxu kitaabin bacda kitaabillah iyo inuusan ahayn. waxaan ku kala ogaan karaa inaan kitaabkan baal rogno oo aan maxay ahayd dib u eegno. kitaabkan markaan dib u eegno waxaan ka arkaynaa inay ku yaalaan waxyaabo lagu magacaabo khiyaanatul cilmi iyo ammaano darro dhanka soo raridda cilmiga markuu soo rarayo. waxaa laga rabaa qofka sheekha ah ee cilmiga sheekhiisa ka soo qaadahaya inuunan cilmiga uu soo qaadahayo intii isaga u cunantana una noo keenin, intii isaga aan u cunaminna uunan iska tuurin. laakiin sida iyada ah oo inta u cunantana uu iska tuuro, inta aan u cunaminna uu wato, waxaa ku sifoobay oo ku tilmaamoobay oo sidaas qaatay wadada imaam bukhaari. kuma iftiranayo, laakiin khiyaanatu cilmiga iyo amaana darrada dhanka naqliga ah bukhaari waa uu ku sifoobay. waxaana idan tusi doonaa miithaalo ila jira oo ila daawada miithaalada aan soo bandhigi doono. maanta waxaan ku kaaftoomayaa hal miithaala oo aan ka soo qaadi doono isaga sida uu oola dhaqmay riwaayadda ku taalla ee uu u jarjaray ee wixii isaga aanu cunamin uu ooga tuuray, iyo sida ay oogu taalla muslim iyadoo dhammaystiran saxiix muslimka. saas darteed sabab lagaga hormariyo oo loo dhaho muslim iyo bukhaari baa ka fiican ma jirto, maadaama uu ka ammaano fiican yahay markii halkan laga hadlahayo muslim. marka hore waxaan rabaa inaan akhriyo riwaayada ku taalla saxiix muslimka. riwaayada saxiix muslimka ku taallaan akhrinaya si aad u aragtaan intaa kadib waxa uu bukhaari sameeyey, si aad u aragtaan. halkan waxaa idinka muuqda saxiix muslim kitaab ulxayd baabu tayamum, lambarka xadiidka waa 846, mujaladku waa ka koobaad, boggu waa 193. xadathana abtirka dheer kadib wuxuu leeyahay can saciid ibn cabdiraxmaan ibn al-abzah can abiih ana rajulan ataa cumara, nin baa cumar u yimid, faqaala wuxuu yihi ninkii inii ajnabtu waan janaabay, falam ajid maaan, biyana ma aanan helin. faqaala cumar wuxuu yihi laa tusalli, jawaabta cumar uu siiyey waxay noqotay ha tukanin ee salaada iska dhaaf, faraha ka qaad. halkan calaamadaysan oo midab kale oo muslim uu si dhaba usoo qoray, bukhaari markuu hadhow aan tagno waxaad arkaysaan inay ka maqan tahay intaan, oo jawaabta cumar uu qariyey oo isagoo ka baqahaya inay arrintan cumar fadeexayso ay meel ooga dhacdo. camaar ibnu yaasir oo meesha joogay baa yidhi amaa tadkuru yaa amiira almu'miniina id ana wa anta fii sariyatin, miyaadan xusuusanin cumarow wakti aniya adugu aan la soconnay oon ka mid ahayn koox ilaalo ah, fa ajnabnaa deedna aan janaabnay. arrintan fa ajnabnaa janaabaa nagu dhacday ah bukhaari markaan u tagno way ka maqantay, wuu gooyi doonaa waad arki doontaan. falam najid maaan, biyana aynan helin. fa amaa anta adigu falam tusalli, maadan tukanin. wa amaa ana anigu fatamacagtu waa gelgelmaystay fi turaabi, turaabta ayaan isku jiijiiday oon ku gelgelmaystay, oo sallaytu waan tukaday. faqaala nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam, nabigaa yidhi dabcan markii aan sheekadii u sheegnay kadib, inamaa kaana yakfiika, waxaa kaaga filaan lahaa an tadriba biyadayka alarda, inaad labadaada gacmood dhulka ku dhufato oo baraatikaal ahaanba u tusay, uma tanfuqa deedna aad iska boorka iska afuftood iska yarayso, uma tamsaxa bihimaa wajhaka wa kafayka, deedna wejigaagi iyo labadaada cukur aad ku masaxdo. cumar markaa muxuu yidhi, faqaala cumar ittaqillaha ya camaar, camaarow hana fadeexaynina naga aamo buu yidhi, hana fadeexaynina naga aamo. qaala camaar wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto lam uxadith bihi, haddaad doonto sheekadan waan ka qarin oo u sheegi maayo. marka hadhow sheekada markaan kitaabka bukhaari u tagnaad arki doontaane inta ka maqan waxay tahay faqaala laa tusalli, jawaabta cumar ayuu jaray oo wuxuu u booday qaala camaar. waxaa kaloo uu jaray fa ajnabnaa, waxaa kaloo uu jaray sheekadan dambe hana fadeexaynin cumar uu ku leeyahay. tani waa sida ay muslimka oogu taallo, waadna arki kartaan halka lambarka xadiidka iyo intaan cid walba ayaa baaran karta. aan aadno haddana bukhaariga sida ay oogu qoran tahay.
واكا بخاري سيدري أو قرنتها الشاكدو وحولي هي حدثنا كذب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال وحولي جاء رجل إلى عمر نبى عمر أيمن بن الخطاب وحولي يري إني أجنبت فلم أصب الماء عمر واجر أبي بينا مهلله محا سمايا هل كان ماركتان إني إبر كقرنتها ويمرتها جوابت عمر هل كان كجري لهيدو أهيد لا تصلي بخاري واسكجري قال عمار فقال عمار بن ياسر وميش في النهيبة يري عمر بن الخطاب سوى الله الله أما تذكر بيادا حسوسنين أنا كنا في سفر حلي أن كجري سفر سعطاء رهين أنا وأنت أرجي أذقو فأجنبنا دينا أنجنبنا طبعا هل كان فأجنبنا ذي وكجري وحبوا ذي جوابتي عمار جوابتيس فأما أنت فلم تصلي ماذا تكنن وأما أنا أنوه فتمعكت وانقل ميستي فصليت وان تكذي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مركا النبي أصور نقوني إلا سارية يكون جيران سيد الرواية دي هرأي قيحضي النبي أيان أشيغي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي يلي إنما كان يكفيك وحا أرنتا كاغف الله اللهين هكذا سداس وبراتكال أهان أي أطسي فعلا فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيان قراعي بكفيه الذي سعكر أي الأرض كقراعي ونفخ فيهما لأنه إسكاف فبورك إسكيريبي ثم مسح بهما وجهه وجهي سأيكم مسح وكفيه الذي سعكر وصدا أي اللو جبجبيسا أيو جبجبدي أيو بري هل كان ما دركتان إبر هذا الكي عمر أها عمار ونجا مهن عبين له نجا مصهن عبين هذا الكي أها عمار وجود جوابي واي هدي أضربتين عن كقرية وكقرينا يا أيو محي أهيدي هل كان كجري هذا وحان أرجنا بخاري عمر درتي يروح أجر جري سوى شرفت عمر إلى لناي بلغا يا شرفت النبي قدرت يدنا إنه أجر جرو أو أحاديث النبي حمينيس أو فول حمينيس أو كتاب البخاري كتاب كيس إنه النبي قدرتي سيدا أصمي بلغا يا مثلا عمر بس أي الله جرى يا أحاديث أو أنت اللي ربنا لو طوريا أنت اللي ربنا لو سورينيا kadib markaad ila daawateen miithaalka aan soo bandhigay oo indhihiina aad ku aragteen anigoo aan waxba ku darin waxna ka jarin waxaa waajib inagu ah kulligeen inaan dib ugu noqono sooyaalkeena diimeed oo waxay wadaadadu inoo sheegeen aan dib iskaga eegno ma aha hoos u dhigid axad aan hoos u dhigayno laakiin waa inaan caqligeena furo oo quruun hore waxyaabo la soo sheegay aanan u ahaanin kuwa u xidhxidhan dib inaan u eegno oon dhahno wixii la inoo sheegay maxaa ka jiray xaq baan u leenahay waxaan idinka codsanayaa دروس نوعنا كلا أو بدن أيان إدي سوا ده هدو الله إدمو إن عاد channel كناجا سبسكرايب عاد صارتا كثير شير قريسان نلانا تفاعشان ولكن محمد وإذا كنت جاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.